أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. beeralayda Soomaaliyeed waa idin salaamay. maanta waxaan rabaa wax yar inaan la wadaago biidnillah oo ku saabsan muxuu ahaa xagga daawooyinka iyo nafaqada insha Allah. alaabaha meesha noo yaalaan xabad baa idin tusi doonaa. meesha waxaa ka muuqato easy grow starter, halkan waxaa ku taalo muxuu ahaa easy grow vegetative, halkan waxaa ku taalo omni high potassium, iyo halkan waxaa ku taalo high, waxaa nooga muuqdo high potassium fruit and flower baa la dhahaa, iyo noocyo kale isku jirjiro oo liquid iyagana ah. waad arki doontiin biidnillah qaybaha siday kala yihiin. intaba waxay isugu jiraan nafaqooyin. meeshana waxaa ku jirto Redomil Gold yaa noogu jirto, halkaana waxaa noogu jiro easy grow calcium. dad baa iga codsaday inaan maaragtay u sharaxo waxay yihiin iyo habka loo isticmaalo geedaha korintooda iyo dhirta korintooda iyo qudrada korintooda. markii la korinayo maxay u baahan yihiin, maxay nooga baahan yihiin oo maaragtay nafaqa ah, maxay daawo u baahan yihiin. adduunkii maaragtay waa isbedelayaa, horumar baa laga gaaray xagga beeraha. marka beeralayda Soomaaliyeedna inay maaragtay horumarkaas ka qayb qaataan baa la rabaa. waxaa la isticmaalayo waxyaalaha kala duwan oo loo isticmaalo chemical fertilizers iyo maaragtay foliar fertilizers noocyadooda kala duwan, noocyada yani nafaqooyinka caleemaha laga siiyo. waxaana arkaysaan oo dhan meesha yaalo waa nafaqooyinka la siiyo geedaha oo laakiin caleemaha laga siiyo insha Allah. wayna kala duwan yihiin kuwa caleemaha laga siinayo, noocyo kala duwan, waxayna ku xiran yihiin geedka marba intuu jiro, yani intuu la eg yahay geedka ayay ku xiran tahay. marka Baraaro Fruit Empire ayaa noo suurtagelisay inaan idiin qabano maaragtay qaybtan maanta idiin soo joodina biidnillah. Baraarana waa taqaaniin, waxaad ugu imaanaysiin calafyada xoolaha, geeda mireedka talaalka leh ama grafted fruit seedlings yaa ugu imaanaysiin noocyadooda kala duwan. horeyna waa in kugu sharaxnay, waxaa ka mid ah cambaha, liinta, noocyadooda muxuu ahaa liin macaanta, babayga, zaytuunka, inta maaragtay intaasoo nooc kala duwan baa idin haynaa. cambaha noocyo kala duwan buu leeyahay, babayga noocyo kala duwan buu leeyahay, afakaadhada sidoo kale noocyo kala duwan bay leedahay. marka xaruntanada hadda koobaad waa Nairobi, xarun labaadna insha Allah waan rajeynaynaa inaan ka furno Soomaaliya. waxay noo socotaa insha Allah, yani waxaa noo socda hadda hagaajinteedii iyo waxeedii, waqti bay nagu qaadatay. marka insha Allah biidnillah waa ina socodsiin doonaa step by step. kusoo dhawaada in leeyahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. sida in sheegnay maantay casharkan wuxuu ku saabsan yahay nafaqaynta geedaha dhirta fruit trees, geedaha maaragtay geeda mireedka kala duwan iyo vegetables-ka iyo qudrada kala duwan ee beeralayda maaragtay ay beertaan beerahooda, ama greenhouse noqoto ama ha noqoto maxaa la dhihi jiray banaanka lagu beero. beeralayda intaan nagu soo beerin fadlan nagu soo beero si aad nooga faa'iidaysataan. channelka subscription-ka saara, dadkana la wadaaga. sidoo kalena waxaad samaysaan like-ta saaro. dadka kale oo beeraha dalinaya, dadka beeraha maaragtay dhibaatooyinka ka haysta xagga nafaqaynta qudrada ay beertaan maaragtay dhibaatada ka haysata hala gaarsiiyo insha Allah biidnillah. waxaan ku bilaabaynaa horta marka aad beer ku jirto, meel walba waxay ka bilowdaan korinta, barbaarinta. kaba soo qaad waxaad nursery gelisay. nurseryga waxaa la dhirta marka yarta meesha lagu soo koriyo. cunuga yarka marka uu dhasho hadiiba lama siiyo cuntooyinka waaweyn, waa taqaanaa. sidoo kale geedaho kale markay yaryar yihiin waxay u baahan yihiin cunto kaas ah oo maaragtay ay qaadan karaan, maadaama ay yaryar yihiin oo ay yihiin maaragtay wax jilcan, aad maaragtay nafaqo gooni khaas ay u baahan yihiin. halkan waxaan ku haysanaa marka
omni kambaniga waa omni laakiin waxaan rabna waxaa waaye high phosphorus geedka markuu yar yahay sida tomaadhada geed walba nooc walba u ahaadaa barbarooniga qaraha waxay u baahan yihiin inay xididadooda bataan si ay nafaqada u qaataan yacni xididka geedka wuxuu siinayaa inuu nafaqo badan qaato marka waa geedka marka laba nooc waa sameynaysaa inaad ciidda kusoo korisay sida tomaadhada oo kale ama inaad kusoo korisay trayska loogu talagalay lagu soo koriyay tomaadhada dadka greenhouse-yada badanaa u isticmaalo dadna waxay sameeyaan waxay diyaariyaan digadii habkii loo diyaarinayo iyadana way noo soo socotaa insha allah waxaa la sameynaya marka digadii baa u diyaarinaysaa u jeexjeexaysaa meeshii baa ku waxaynaysaa kusoo korinaysaa waxay dhahaan dadka beeraleyda waxay u yaqaanaan meesha boobinta meesha lagu boobiyo markii tomaadhada lasoo koriyo meesha lagu boobiyo waa haddii aad dhulka u waxaynayso digadii iyo caradii oo jilicsan baa u diyaarinaysaa kadib way soo baxayaan waxay qaadanaysaa tomaadhadoo kale 4 beri 3 beri dhulka kulul way dhaqsanaysaa geedkaas markuu soo baxo waxaa la rabaa galin subax iyo galabba inaad siiso biyo subax iyo galab waa ugu daynaysaa biyahaasaa siinaysaa waxaad samayn kartaa markaas mirahaas dhaqso inay kuu soo baxaan haddaad rabtid waxaad isticmaali kartaa bahashaan la dhahayo optimizerka waxyaalo badan baa loo isticmaala horta any stage yani waxaa loo isticmaali kara waa liquid fertilizer waa la cabiraa 20 ml baa loo cabiraa 10 ml baa loo cabiraa 5 ml baa cabiraysaa yani geedka inta uu jiro hal bilood hadduu jiro hal maalin hadduu jiro hadduu seed yahay intaba waa u isticmaalaysaa waxay number 1 sameynaysaa waxay jabinaysaa waxa la dhaho dormancy geedka yani seed waxaa jira sida barbarooniga oo kale waqti dheer ku qaadanaya inuu soo baxo 14 beri 15 beri marka inaad jabiso haddaad rabtid markaad biyaha waraabinaysa tan baa biyaha lagula siiyaa optimizerka qudaarta dahado sida barbarooniga oo kale waa kula boobinaysa xilliga aad boobinayso dhulka gelinayso ama aabacaha gelinaysaba biyaha tana ugu daraysa optimizerka kula daraysa waxay ka caawinaysaa inuu jabo yani sirka asaga inuu jabiyo maxaa la dhihi jiray dormansiga waxa la dhaho ya adkaysiga ay lafta ay adagta inay lafta hadiiba adagto ay soo baxdo adkaysigaas inuu jabo marka waxaad kaloo isticmaalaysaa bahashan la dhahayo omni starter la dhaha waa cuntada koobaad oo la siiyo geedaha naasariga lagu siiyo cuntada intay 21 beri ay ku jiraan naasariga midda la siiyo marka waa tana lagu bilaabayaa starterka lagu bilaabayaa starter la dhaha yani waa bilow cunuga markii la soo korinayo naaska hooyadiis baa lagu bilaabaa geedahana midaan baa lagula bilaabaa korinta markii geedka la soo korinayo tana lagula bilaabaa maxay ka caawinaysaa isbuuc kadib baana la siiyaa qaarna waxaa la sameynaa number 1 waxay qabanaysaa active rooting system growth yani xididada geedka xididadiisa inay koraan ay ballaartaan ay dheeraadaan buu ka caawinayaa number 2 germination xilliga geedka uu soo bixitaanka xataa way ka caawinaysaa marka kala haraan oo kale bixitaanka waa lagula sameyn way ka caawisaa waxay kaloo ka caawinaysaa geedka xilliga uu korayo koritaanka inuu dhaqso koro awood yeesho yay ka caawinaysaa waxaana laga siinayaa waa kuwaan oo dhan waxaa laga siinayaa caleenta waa lagu buufinayaa dhulka laguma shubaya caleenta waa lagu biyaha lagu qasaa markii la qasayo marka see loo qasa waa intusaya iyadana waxaa kaloo ay ka caawinaysaa xilliga geedka la talaalo abqaalka la abqaalayo oo yani ciidii baa laga soo bixiyay greenhouse-ki baa la geenayaa gurigii degnaa ama waxaa la geenayaa beerti baa loo kaxaynayaa xilliga ayadahana waa la siiyaa waa lagu nafaqeeyaa waxay ka caawinaysaa laftirkeed inuu xididka sii ballaarto oo shooga maarata xilliga uu cuntana usii noqoto xilligu geedka uu soo koray sababtoo gurigiis meeshuu ku jirjiraa laga bixiyey meel ku cusub oo qorax leh jawi kale leh ayaa la geenayaa marka waxyaalahaas oo dhan waxay ka caawinaysaa marka nafaqay siinaysaa marka saas la sameynayo transplant bala ama talaalista markii la muxuu ahaa laga bixiyo meesha lagu boobiyey beerta la geenayo waxaa lagula dalayaa optimizerka laftirkeeda optimizerka faa'iido badan bay u leedahay faa'iidada leedahay horta waxaa waaye geedkaas markii number 1 isheego xagga waxay jabisaa adkaysiga miraha adag bay jabisaa midda labaad geedka shooga markii laga bixiyo meeshii lagu buubinayay ama naasarigi oo la abqaalay shoog baa ku dhacay sababtoo geedkan xididkii dhulkii uu ku jira waa laga soo siibay meel kale la geeyey qorax leh waa isbedelayaa marka
optimizer baa waxay ka caawinaysaa isbedelkaas cimiladaas kala duwan iyo shooggaas ka caawinayaa awood bay siinaysaa geedkan uu cimilada kula qabsado iyo hawadaas cusub iyo meeshaas cusub iyo ciidaas cusub intaba kula qabsanay sidoo kalena nafaqay noqonaysaa tan marka maxaa loo sameynayaa 20 ml yaa 20 muxuu ahaa bahalka fur bay wadataa 20 cc iyo 20 ml midka dhahlaanba ml bay ku qoran tahay waa biyo ahaan yaa laga siinayaa tanna waxaa la siinayaa 10 miligram baa la siinaya 10 miligram maxaa laga wadaa 10 miligram waxaa laga wadaa yacni qaadada waa soo daraysaa ma buuxinaysid sida hadda tan u taalo kale waa level garanaysaa intan hadda waa 10 miligram oo min waxaa siinaysaa geedka markuu yar yahay ay naasiriga ku jiraan meesha boobinta ku jiraan waxaad siinaysaa 10 miligram oo min 3 ama min 2 maalinta 8aad baana siinaysaa maalinta 8aad markay soo baxeen markii la boobiyey ay soo baxeen madaxa soo taageen number 1 baa maalin day 1 baa u dhaxaysa maalinta 8aad baa marka waxa u qasaysaa 20 miligram ama 30 miligram يعني wax yar ku bilow sababtoo ah lama qabsan karaan wax badan oo weyn lama qabsan karaan 20 miligram ku bilow maanta waa khamiis aan 10 ka idin duubayo maanta taariikh 8 ah maalinteeda 8aad baad siinaysaa maalin 8aad markaad siiso waad ka boodaysaa maalinta ku xigto waxaad siinaysaa maalinta kale ku sii xigto maanta khamiis jamcada waa ka boodaysaa jamcada markaad ka boodo waxaad siinaysaa sabtida markaad siiso axadda waad ka boodaysaa waxaad siinaysaa isniinta ma fahantay maalin baa mar walba ka boodaysaa yacni waxaad siinaysaa maalinta hore haddaad 10 gram siisay waxaad ka dhigtaa maalinta labaad 20 gram maalinta saddexaad 30 gram yacni mar ka dambayso geedka siduu u koraya fiiri haddii aad aragto inuu ku gubanayo ama ay si kala noqonayaan ka yaree garaamka miligaraamka ka yaree yacni ku yaree sida aan ku sheegana waa qaadadan waa qaadada aan cuntada ku cunno marka tani marka waa high K starter la dhahaa high K ya qulina high phosphorus baa la waxay badisaa root systemka iyo geedaha u badinaysaa root systemka yacni xididada iyo u badinaysaa oo awoodda siinaysaa midaas kiila u xiran tahay marka kambaniya badan baa jira easy growdaas baa iska leh kambanigaas iska leh Velgidana iska leh kambaniya badan baa jira marka hay laakiin muhiimadda waxa waaye phosphoruska waa inay badato hadda phosphoruska tan meeqa waa NPK phosphoruska meeqa uu leeyahay waa 25 fiiri wataasa 25 tan nitrogenka waa 20 muhiimadda waa tan phosphorus taasa la dhahaa waxay kala wadataa trace element waxa la magnesium ku jiro trace element waxa waa waxyaalaha yar yar oo geedka u baahan nafaqaadka yar yarka waxa kamid ah zinc ba kamid ah boron ka kamid ah waxa kamid ah waxyaalaha yar yar oo geedka aad muhiim u ah oo caleenta cagaar ka dhigayso marka midaas waa halkaas ay nooga haraysaa geedaha markay yar yar yihiin qudradda markay yar yar tahay midda loogu talagalay waxaana waaye high phosphorus korinta xagga korinta miraha xagga korinta geedaha yar yar oo nursery ku jiro ama kuwa la abqaalay la talaalay intaas markii la talaalo marka waxa laga transplanting qof walba yaqaan tanna waa la siinaya waa la isku darayaa maalintaad muxuu ahaa transplanting ku sameysay labadoodaba si markaad talaashay labadaanba isku dar tanna 20 ml tanna waxa laga siinayaa 30 miligram 30 miligram qaadadaana lagu cabirayaa idin dhahay taasi waa halkaas geedka intaas sidoo kale wuxuu u baahan yahay sidoo kale daawada looga cayayaanka looga hortagayo maalinta ayada waa isku la dari kartaa midda cayayaanka iyo midda cudurrada labada waa isku mar baad ku dhufanaysaa taasna waxaa noo soo socdo koorso aan soo wadno insha Allah step by step koorsooyinkan siiba tomaatada koorsadaas insha Allah ayaa ku sharaxi doonaa step by step geedka sida cayayaanka looga hortago sida cudurrada looga hortago waxaas oo dhan ba koorsada ku soo qaadan doonaa biidnillah nala socdo qaybtanada koobaad waa midaas isbuuca koobaad geedka la talaalay midda la siinayo waa labadan baa dhahnay waxa kale oo la isticmaalaa baxal la dhahayo integra waa saliidaysadan iyada xilliga transplantiga waa la isticmaalayaa
waxayna ku fiican tahay daawada iyo nafaqada iyo meel walba gaarsiinaysaa isbuuca aad talaashay miraha kow tana ku dhufanaysaa tan oo starterkia high phosphoruska isbuuca koobaad waad siinaysaa isbuuca labaad marka waxaa noo galayo midaan la dhahayo saddex noocba way noo geli karaan waxaa noo geli karto bahashan Wuxolka waa kambani kale kambaniga Bayer la dhaho yaa iskale waa kambani caan ah oo waxaalihiisa daawooyinkiisana aad tayo u leh wuxuu leeyahay daawadan waa taqaanaa kambanigan qof aan arkin malaha Bayer la dhahaa sabaarti kambaniga waa kaasa Bayer la dhahaa belt bahashan waxay ka hortagtaa wixii deer oo dhan familka deerta bahasha nafta dadka u keentay laakiin kaligeed ma isticmaali kartid waa inaa nooc kale la isticmaashaa xilliga waxayna goysaa xilliga la transplant laga sameynayo xilliga geedka miraha keenayo xilliga uu booqa keenayo intaaba waa looga hortagaa 2 jeer baa lagu dhuftaa tanna 2 jeer baa ku dhufanaysaa mid noocan oo kale ah maadada tan ku jirto ayadana ku jirto waxaa lagu dhufanayaa ayadana mar kale lagu dhufanayaa marka waana intusayaa insha Allah mar dhan baa leedin sharax inta looga dhufanayo waxaasoo dhan waxay noogu soo socotaa xilliga crop protection ka tomaatada koorsadeeda waxaa kaloo la isticmaali karaa yara vita crop boost tan waxaa loogu talagalay geed walba oo la talaalo nooc walba ama qudrada ha ahaato ama geed walba ha ahaato crop walba muxuu ahaa dalag walba oo la talaalo ama dalag walba oo xilligii marayo vegetative xilliga caleenta uu bixinayo yani geedka markii la talaalo laba waxba uu u baahan yahay dhulka nurseryga markii laga soo baxo ama uu xilliga uu caleenta waxaynayo intuusan miraha iyo booqa keenin geedkan koritaan buu u baahan yahay koritaanku u baahan yahay maadada u baahan yahay waate wuxuu u baahan yahay maadada ayadana waxay u baahan tahay maadada nitrogenka way u baahan tahay number 1 taas ay u baahan tahay waxay kala u baahan tahay geedka marka xilliga la talaalo xilliga la abqaalo isbuuca labaad waxa ka joojinaysaa starterka waa ka joojinaysaa isbuuca labaad yani ka isbuuc baa nafaqada u siinaysaa geedahan inaad wax badan ka hesho miro badan ka hesho si aad miro badan uga hesho ama geedkaad si fiican kugu koro oo haduu yaanyo yahay haduu barbarooni yahay si fiican kugu dhalo waa inuu helaa nafaqada saxdeed oo ku filnayd marka xilliga geedka uu caleemaha badinay green vegetative growth ba English lagu dhahaa xilliga geedka uu korayo caleemihiisa balaaranayaan laamihiisa badanayaan wuxuu u baahan yahay nitrogen badan buu u baahan yahay nitrogen waa garanaysa waxyaalaha badan uu u fiican yahay nitrogenka midda caleemaha tan hadda waxaan ka hadlaynaa midda dhulkana waa siinaysaa carrada lagu midda caleentana waa siinaysaa midda caleenta hadda tan fiiri sidii tii hore nitrogenka meequu noo yahay 27 buu noo yahay tii horena fiiri phosphoruska waa 10 potassiumka ayada waa 16 trace elementna way wataa marka xilligan geedka uu korayo oo caleentiisa ay korayso waxyaalaha u baahan maxaa waay nitrogen badan waay geedkan soo ku balaarto nafaqo fiican ku helo nitrogen fiican waa inuu helaa waxa uu isticmaali kartaa waa inay wadataa high nitrogen wax walba ka fiirsan nitrogenkeeda waa inay badan tahay vegetative ana lahaa waxa ka isticmaalaysaa midda marka hadda kambaniga ayada 30 gram ka isticmaalaysaa tan oo kale 20 ml yara crop boost tan waxa yara crop boost ama waxa isticmaalaysaa Wuxol labadaas mid ka rabta isticmaalaysaa Wuxolta waxa ka isticmaalaysaa 50 ml micromix waxa kale isticmaalaysaa yara crop boost galeyda u isticmaalaysaa misagada u isticmaalaysaa yani geed walba oo korayo tan waa isticmaalaysaa laakiin waa xilliga isticmaalaysaa xilliga geedka korinta isticmaalaysaa ma ku jirto xilliga man laga dhahay xilliga ubaxa tan lama isticmaalo yara crop boost xilliga ubaxa lama isticmaalo laakiin waan arki doonaa xilliga ubaxa kuwa isticmaali karno oo doon waxa kale isticmaalaynaa midan optimizerka waa isticmaalaynaa
optimizer any stage oo yani xilli walba artaada ama geedkaada waa u isticmaalaysa kan ama xilliga koritaanka uu yar yahay nurseryga ku jiro oo iyo xilliga abqaalka iyo xilliga koritaanka iyo xilliga ubaxa intaba waa lagu isticmaalaa tan mar walba tan waxa ku muhiim ah inaad isticmaashid hadaad ku tashanaysid inaad wax soo saarkaada badisid qudaarta siiba qudaarta hadaad rabtid inaad qudaarta wax soo saarkeeda badisid tan muhiim ba ku tahay waliba xilli meelaha aad ka maartay cimilada kala duwan leh cimilada biyo yarida xilliyadaas oo kale waa isticmaalaysaa xilliyada shoogga geedaha ay ku badan yihiin tanna waa integrana marna kama tagaysid integra xilliga geedka uu nurseryga ku jira bas ka tagaysid laakiin xilliga transplantiga la talaalayo iyo xilliga koritaanka iyo xilliga daawo walba oo la isticmaalaysa integra waa la isticmaalaysaa in marna ha ka tagin marnaba ha ka tagin tan integra optimizer waa la isticmaalaysaa maalinta talaalayso xilliga daawada kula dhufanaysa inta waa la isticmaalaysaa kuwaan marka saddexdan kana isticmaali kartaa kana ka isticmaali kartaa kana ka isticmaali kartaa yani kama wado yani kan iyo kan waa inaad isku dartaa maaho saddexdoodanba waxay leeyihiin nitrogen sareeyay leeyihiin marka noocaana isticmaali kartaa ama noocaana isticmaali kartaa ama noocaasa isticmaali kartaa hal ifaham si fiican noocan hadda waxaa lagu isticmaalaa saanoo kale cabiraysaa bahashaan ku cabiraysaa qaadadan 30 gram baa laga isticmaalaa vegetative kuwa ah company kale haduu yahay way ku qoran tahay meel ay ka qoran tahay jirto oo lagu qoro isticmaalka sida waxa loo isticmaalo waligiina iska isticmaalino way ku qoran tahay 20 to 40 gram 20 maxaa lagu leeyahay and 30 to 40 gram wixii waxa lagu 3 crops wax walba lagu qorayaa qudaarta dhan maxaa lagu yiri wixii qudaar oo dhan 30 to 40 gram yani daatiga waxay isticmaalaysaa xilliga geedka nafaqadiisa fiicanta xilliga uu maartay geedka ku aragto inuu koreyn inuu nafaqadiisa hooseeyo caleentiisa jaallo tahay maxay isticmaalaysaa 40 gram intervalka waa lagu sheegay apply every 14 days yani daawada nafaqooyinka habka loo isticmaalo barta walaalayaal wax walba habka loo isticmaalo waa in la bartaa iska isticmaal ma iska buufi qofka ku siinayo war waxaan weydiiyo qofka ka gadayo haduusan garanaynin qofka asaga numberka anaga waa haysataan na waraysto sida loo isticmaalo halkaan imaado daawo walbo isticmaalaysiin nafaqa walbo isticmaalaysiin way ku qoran tahay habka loo isticmaalo marka waraysta dadka waraysta wuxuu iska isticmaal waa la ii sheegay iska isticmaal waxaan hadaa geedka ka badis geedku gubanaya for example waxaa lagu yiri ka isticmaal 30 gram laakiin waxa isticmaala 50 gram geedku gubanaya ama waxaad ka isticmaashay 10 gram geedka nafaqada kule la siinay ma helay ama qudrada nafaqada kule lama helayso kan hadda waa ku kan meeqa ku qoran 50 gram in 20 liter waxa lagu qasay Kenya mar walba beeska maxaa ah 50 gram in 20 liter 20 liter baa mar walba sababtoo ah bamka la isticmaalo oo Kenya la isticmaalo waa 20 liter 20 kaas liter baa maxaad ku qasaysaa 50 gram 50 gram kaas waa markuu geedaha ay waaweyn yihiin laakiin markay yar yihiin oo nurseryga ku jiraan 50 gram ma qaadan karo waa inaad 10 gram siisaa 20 gram siisaa 30 gram marba mar ka dambayso every 7 days asagana isticmaalaysaa 7 bari kadib waa taas asagana ku qoran waa wax aan ku qoran apply every 7 to 4 days laakiin geedaha markay yar yihiin waxaan ku yiri 10 gram ku bilow 20 gram ku bilow maalin ka bood ama 2 maalin ka bood maanta khamiis hadaa sameeyso jamca sabti ka bood axadsi ya alternative inta u dhaxaysan biyo si maalin biyo ku siinaysa 20 ml biyo ku siinaysa kula siinaysa maalin waxa siinaysa biyo kaligood ilaa 21 bari saasa ugu wadaysa geedkaas ka talaalaysa halkaasi waxa noogu eg geedka xilliga uu korayo geedaha xilliga aysan miraha keenin booqa keenin 14 baribo tan baa siinaysa 14 baribo tan ama midaan ama tan wax walba way ku qoran tahay mid walba habka loo isticmaalay waa ku qoran wax aan ku qornayn halkaan qoralku ku qoray hadaadna garanayn nala soo xiriir 20 liter baa tan loo 20 ml baa loo isticmaalaa wixii aan garanayn fasalu ahla dhikri dadka garanayo waraysta walaalayaal intaas bas ah yaa ka codsanaynaa inaad maartay waxaad isticmaalaysaan adinkana ayna wax ingeysan korobkiinana maartay wax u geysan dadka bini aadamkana sababtoo waxaan waa qaarkood waxa waaye chemical ba ka waxay chemicalki hadaad ku badiso wixii hadhow dadka adiga laftirkaada wax ku gaarayaan marka daawada iyo
nafaqooyinka sida saxda loo isticmaalo midaan bahashan iyada chemical kama waxaysno waxay ka waxaysan seaweed wax laga wado yani geed badda laga helo yaa laga waxaya organic waaye midaan wana kaasa samartid seaweed fertilizer waaye plant growth marka any stage waa loo isticmaalaa yani xilliga flowerinka xilliga uu yar yahay xilliga miraha xataa markii la goosto xilliga aad buubinaysid sida babay oo kale xilli walba waa loo isticmaalaa tan yara crop boost galeyda misagada waxyaalahaas bay ku fiican tahay qudrada kuwa yoga u isticmaala ku dhila xataa iyada la tirkeed waa isticmaali kartaa xilliga vegetative aad ku caawinaysaa tanna aad bay ayadana u fiican tahay midaan ayadana wuxal baa la intaan oo kale waa kala company waxaa u gudbaynaa qaybta insha Allah qaybteena labaad biidnillah